السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا دمان خيارتي انت جنون كحرن انت عصب دمان تنك سود هذا مقالكن وانا بقى يحيى محمود أحمد. مقالكن ما انتم حربينا كجا هالله تضبط تيب أو جوجل كروم كسابسن جوجل كروم سوى تقارن بروزر كأبو كل وعن سنة صديق موزيلا فايرفوكس marka waxaan ka hadli doonaa maanta toddoba tip oo asaga ku saabsan daawasho wacan. tibkeena koobaad horta marka hore intaana tib ka hadlin kulley iska caddahay waxaa furasaa Google Chrome saa uga hadli karno. tibka koobaad waxay tahay oo isna cusubba tib maxaa la yiraahdaa feature cusub ah. waxa weeye wax la yiraahdo tab grouping new waa taas ay ku qoran tahay waa maxaa la yiraahdaa waa feature cusub waa. tab grouping wuxuu ku sameynayaa dhowr tab oo kala duwan oo laakiin isku hal wax ka hadlayo kala markay ku furan yihiin waxa la sameeyaa hal group lagu daraa si ay hal meel isugu ururaan space badan ee kaaga wacnin. Mesela oo kale tabkan hadii aan furo tabkan oo kale hada Facebook haduu ku furan oo kale mesela ama Instagram ama Twitter hada saddexdaas waxay isku yihiin dhamaantood waxay isku yihiin social media. hadii aan rabo maxaa la yiraahdaa inaan u sameeyo kale mesela social group la yiraahdo saasan waxaan leeyahay group ku dar hadaan ku soo celiyo مثلا فيسبوك اسك xidhnay hadii aan ku soo celiyo waxaan leenahay add tab to new group marka wuxuu ku leeyahay magaca bixi groupka social ayaan leenahay مثلا social markaan raano saa ayuu kugu sameeyay kadibna inta ayaa leenahay kadib Instagram ka hada social ayuu ku jiraa Twitter ka hada inaan rabno inaan ku darno saas ugu soo darana ama marka rabto inaan ka saartana saa ayaa uga bixinaysaa laakiin hadda aan ku soo darno marka rabto inaad isku ururisana waxa ku dhufanaysaa on social meesha ku qoranta waxa arkaysaa inuu sidaas ugu ururayo marka inaad kala furtarasana saa ayaa leedahay waxa arkaysaa marka space badan xagga kaaga save gareynayo. tip number 2 waxaan rabnaa inaan kaga hadalno wax loo yaqaano oo isna space ka waxyaabaha tabs ka ilaaliya ah sidoo kale hadda badan dadka tabs ka aadka u fara badan furo hadii aad tahay tab waxa ku sameynaysaa waxa leedahay right click ayaa leedahay kadibna waxa leedahay bin tab ayaa leedahay bin tab waxa sameynaysaa tabka xagga hore ay geynaysaa icon kaliya ayna ku soo raawaysaa waxa ka saaraysaa qaybtii magaca ay ku qorneed. tip number 3 ama feature saddexaad ee rabo inaan ka sheego waxa waaye ina dhowr tab oo ku wada furan oo codad ay ka wada baxayaan oo kale sidee u wada maamuli kartaa. Google Chrome waxa lagu soo kordhiyay badhankaas oo ku qoran tahay media calaamada maxaa la yiraahdaa media ay ku soo tahay hadda waxa arkaysaa hal muuqaal ayaa hal meel ayaa cod bixinaysa ay ku leeyahay oo ah page-ka. hadii aan mesela kale safxada window-ga kale aan tagno mesela kaba soo qaad aan cod kala shidno waxa tagno hadda waxa arkaysaa in ay ku soo baxayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. laba inay ku soo baxayso ayaa arkaysaa laba inay ku soo baxayso xagga ayaad ka shidi kartaa hadba tii aad rabto tii kale hadii aad rabto xaggana ka shidaysaa marka xagga ayaa ka maamulaysaa hadii dhowr cod oo kale ayna rabto inay ku wada shaqeeyaan hal mar saas ay u wada maamulaysaa. tip number 4 ama tibta afraad waxa waaye wax loo yaqaano sidee tabs kan aad ku fara badan oo kale u dhaqdhaqaajin kartaa. مثلا oo kale hada tan hadii aan ka saarno مثلا aan group aan leenahay groupka ka saar markaan groupka saa uga saarno مثلا oo kale waxaan rabaa maxaa la yiraahdaa Instagram iyo Twitter labada tab inaan maxaa la yiraahdaa dhaqaajiyo hal mar wada dhaqaajiyo waxaan sameynayaa mid ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay control kadibna takala ayaan ku dhufanayaa labadooda markay saa kugu highlight gareysmaan kadib waa jiidaysaa meesha doonta ee saa u geynaysaa. hadii aad ka soo saartana window gaar ah ayaa u bixin kartaa hadii aan rabno inaan ku celinana sidii aan u celinayna saa ayaad meesha doonto u geynaysaa inaad ka soo saarto marka rabtana saa ayaad safxad kale
ku geynaysaa. Tip number 5 ama feature-ka shanaad ee rabo inaan xaggan ka sheego ku saabsan Google Chrome waxay tahay marmarka qaar haddii aad dadka taababka badan fula tahay ama programkaba si u kaaga culusaado Google Chrome aanad garanayna meesha laga haysto waxaa fiican inaad ogaatid shaqooyinka socda waxa maxaa la radaa culayska keenaya si aad u ogaato waxaad samayn kartaa sida computerka task manager u leeyahay Google Chrome na task manager u leeyahay kaasoo howlaha socdo dhan aad ka ogaan karto waxaad tagaysaa saddexda dhibcood u shiishaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa more tools kadibna xagga ayaa wax ka dooranaysaa task manager wuxuu ku furayaa task manager gaar ah oo Google Chrome leeyahay waxaad arkaysaa dhammaan tabska kuu furan oo dhan inay xaggan ka soo baxayaan xaggan oo kale sidoo kale ka arkaysaa tabka internetka isticmaalaysa CPU-ga inta ka isticmaalayso network inta ka isticmaalayso kadib tii aad isleedahay way mashquulinaysaa ayaa waxaa samaynaysaa un end process ayaa leedahay tip number 6 ama feature-ka lixaad ee xagga inaan ka sheegna amaanta rabo waxay tahay wax loo yaqaano Chrome URL Chrome-ka wuxuu leeyahay dhammaan meelahiisa dhan settings hadday noqdaan ama history hadday noqoto download safxad walba waxay leedahay wax loo yaqaano waxay leedahay URL-kaas inaad taqaan waxay kaa caawinaysaa inaad si fudud adigoon xaggaa tegin soo furin inaad si fudud u tegi karto meesha rabto مثلا kale hadda haddii aan rabo inaan tago Chrome مثلا kale settings hadda inaan tago rabo waxaan leeyahay Chrome isla markii waxaa arkaysaa inuu settings ku geeyo sidaas la eg haddii aan مثلا oo kale rabo inaan tago Chrome ama URL-ada Chrome oo dhan hadda inaad ogaatid rabtid waxaa leedahay un Chrome URL ayaa leedahay kadibna waxaa arkaysaa dhammaan URLs-ka iyo meelaha Chrome ee la tegi karo dhan inuu xagga kugu jiraan مثلا oo kale hadda xaggan iraano kuwa aad ku caansan wax kamid oo kale history waxaa arkaysaa safxaadkii aan booqanay ayuu ku geynaya. Tip number 7 ama feature-ka toddobaad ee rabo inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan haddii la aadmo waa wax aad ku caawin doona waxaan isleeyahay aadna mar walba u isticmaalo kuna fududeynaya waxay tahay badanaa haddii aad Google inaad ka baarto kala rabto sida caadiga badanaa sameeyaan dadka waa inay marka hore Google ku qoraan kadibna ay maxaa la radaa Google-kan ku soo baxo kadib waxa ay baar lahaayeen oo kala geliyaan ama YouTube oo kale sidoo kale aad marka hore website ka tagto kadibna aad ku qorto step-kan ama feature-kan wuxuu ku sameynayaa labada step ayuu hal step kugu soo ururinayaa haddaba maxaa sameynaynaa marka koobaad waxaa furaysaa tabkaas sidaas oo kale kugu furan meesha waxaad tegaysaa ay ku qoran tahay meesha URL-ka la geliyay ee website-ka aad ku qori lahayd website-ka markaa saas oo kale ugu qoran hadduu مثلا oo kale hadda suggestion ahaan kuu siiyo waa kaasa haddii kale aad wada buuxisana waa gelinaysaa kadib waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo tab ayaa ku dhufanaysaa tab markaa ku dhufato waxaa arkaysaa isla markii inuu ku leeyahay YouTube-ka ka baar dhexdiisa hadda مثلا oo kale haddaan iraahdo مثلا oo kale waxaan leeyahay isla markii waxaa arkaysaa marka koowaad inuu YouTube-ka gelayo kadibna maxaa la radaa uu ku soo saarayo wix aad gelisay step-kaasna wuxuu isugu ka ururinayaa laba step ayuu xabad kaaga dhigaa waxaan rajeynayaa in maxaa la radaa tipskaas aad ku anfici doonaan haddii aad tahay dadka isticmaala Chrome-ka waxaan rajeynayaa muuqaalo badan oo ku saabsan Chrome oo isku xiga inaan insha Allah tacaala soo gudbi doono haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir haddii aad hore nagu xidhnaydna waxaan rajeynayaa inaad share garay doonto dadka aad isleedahay channel-kan waxa aan kasoo gudbinayna uu anfacayaana insha Allah tacaala la wadaagi doonto mashaariic badan ayaa soo wadnaa oo ay ka mid yihiin maxaa la radaa courses isku xidhan oo ku saabsan design hadday noqoto programming hadday noqoto iyo waxyaabo badan marka waxaan rajeynayaa inaad channelka nagu soo biirtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.